بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميلاد جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت باهن الله ديقو انت بوكتا الله بوكسيو انت ديبتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا نغانا الله نوغدب نحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. Qodobka koowaad, Puntland oo soo saartay warqad war-saxaafadeeda oo ay ku beeninayso hadaladii fiqi uu ka yiri aqalka sare kelmadaha ka oranaya. Qodobka labaad, Jubbaland oo loo sii deynayo budget support ama lacagtii miisaaniyadda lagu kabayay iyadana kelmadan ka oran doona. Dani ayaa wuxuu soo saaray warqadaas wuxuu ku beeniyay eedayntii uu dusha ka saaray fiqi Siciid Dani oo ahayd in airportka Boosaaso loo isticmaalay xasilooni darrada ka jirta Suudaan iyo dhibaataynta shacabka reer Suudaan, uuna ku eedeeyay Dani inuu mas'uul ka yahay. qodobka labaad wuxuu ka hadlay ciidamo laga sheegay aqalka sare doodii ka dhex socotay oo la sheegay inay Puntland joogaan laakiin dawladda federaalka ay mushahar siiso. Faroolana uu buuq ka keenay oo hadal ka keenay. qodobka hore, madaxweynuhu wuxuu soo qoray warqad uu leeyahay gabi ahaanba waa dacaayad raqiis ah hadallada fiqi iyo dawladda federaalka ka soo yeeray oo ah in halkaas loo isticmaalay xasilooni darrada Suudaan. warkaasi waa war caalamka oo dhan horta qaatay. That's xaqiiq. Media caalamka oo dhan ba qaatay, kuwa waaweyn iyo kuwa yararba. qodobka labaad, warka isaga ahi isagoo official ah oo dacwo ah ayuu Security Council ka yaalaa. Soomaaliya dacwadda way ku jirtaa, Boosaaso dacwadda way ku jirtaa. Dani marka maadaama qolada federaalka ay ku eedeeyeen isaga oo farta ku fiiqeen, waa qirasho ay qirteen inay dhibaatadu jirto. isaga beenintiisu marka macna ma sameynayso marka la eego min jihati ash-sharc, dhinaca legalka marka laga eego caalamka wax macna ma sameynayso. waxa uu khayroonay isaga inuu isagu isdifaaco oo yiraahdo anigu hawadana ma maamulo, arrimaha dibaddana shughul kuma lihi, heshiisna lama gelin imaaraadka. heshiis waxaa la galay xasan sheekh maxamuud, golaha wasiiradana baasiyey, cid walbana waa taasaa isaga u khayroonay. awoodna uma malihi inaan anigu aan wax diido ama wax yeelo. hadduu ka baxsanayo eedaas sida kaliya u banaanayd uu kaga baxsanaa saasay ahayd. ciddii la talisayna tala fiican ma siin. waana ku fashilan yahay. qodobkaasina waa galay. qodobka labaad oo ah ciidamada reer Puntland, waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo Siciid Dani iyo dadka shacabka intaba. idinku Soomaaliya horta ma ka tirsan tihiin oo federal governmentiga qayb ma ka tihiin mise kama ahin? laba isku heli maysaan. inaad tirahdaan federaalnimaan rabnaa oo federaalnimaa la diidan yahay iyo afartii qodob oo federaalku lahaa afartaba inaad ku haysataan isku heli maysaan. waa aragteen Siciid Dani oo leh shalay lacag baan samaysanaya. afarta shay waa lacagta, waa arrimaha dibadda, waa ciidanka, waa immigrationka iyo jinsiyadaha. intiiba ma ku haysataan mise kuma haysataan? qodobka koowaad lacag baan samaysanaya. qodobka labaad wuxuu yiri haddeer e-visa samaysanaya. wakiilaha dadka iyagoo e-visa ku soo galay oo lacag $60 laga qaaday buu mar labaad lacag ka qaataa. kulligood jeebka loo socdaaye ciidana dawladnimo uma socoto. waa qodobka saddexaad. ciidankii wuxuu leeyahay waa maleeshiyo hadday Puntland joogaan. ciidanka federaalka ay Jubbaland bay joogaan oo waliba dagaal dhex maray oo aad ogtihiin raas Kamborin dagaal ka dhacay ilaa haddeerna xiira ay tahay gedana ay isku haystaan oo dagaal ka dhaceen. ciidanku waa joogaa federaalka, lacagtoodana waa qaataan. Faroole wuxuu yiri dawladda ma la mariyo, kuwa lama mariyo dawladda. qof walbo askariya akoonkiisa khaaska ah oo ah telefonkiisa baa lacagtu ugu dhacda. waana arrintii ay ka shaqaysay dawladdii Farmaajo oo ahayd biometriga. marna aad dhinac ka ammaantay haddaad tahay Faroole, dhinacana aad eedeynayso le dawladda ma la mariyo. waa meesha labaad waxay joogaan koonfur galbeed, lacagtooda iyagay u dhacdaa. dawladda shughul kuma leh.
waxay joogaan Hirshabeelle saasoo kale dowladda shughul kuma leh waxay joogaan Galmudug gaalkacyo dhankeeda kale joogaan lacagtooda iyaga u dhacdaa dowladda ma marto Puntland maxaa ku gaara Puntland ma dowlad gaara markaan Puntland ka hadalno maskaxdu inay vacation qaadato harabin oo maskaxda aadan ka fikirin qofka reer Puntland oo dib u fariiso inta qowqaayiinta oo lacagta lagu shubo oo meelaha ka qayliya oo danisa ugu daldalo lacagta imaaraadka danka maliin adaan kula hadlaya qofkaaga reer Puntland wax garadka ah ama aqoonyahanka ah bal dib u fariiso Puntland maxaa ku gaara maxaysan u rabin inay federaalnimada qaybteeda qaadato oo ka mid noqoto oo ciidanka Puntland ay ka tirsanaadaan dowladda waa su'aal guud qodobka labaad ma PSF baa weligeed Puntland lacagsiis marna Mareykanka oo abuuray baa siin jiray marna dowladda federaalka baa siin jirtay goormay dambi noqotay ciidankii oo Cabdullaahi Yuusuf ka qaaday Garowe oo uu la tagay xamar iyo Baydhabo la tagay oo dowladda federaalka lagu dhisay soo ciidan Puntland ma ahayn soo ilaa hadeer saraakiishi ma joogaan soo ilaa gobol walba kama shaqeeyaan ma joogaan iyagoo reer Puntland soo kama shaqeeyaan ma Jimba ma Malaysia iyagu markii xagga jiraan waa okay laakiin haday Puntland yimaadaan waa dambi Puntland marka waa inay dowlad kale tahay oo aan ka tirsanayn Soomaaliya waxa loo diyaarinayaa dadka in la isku laayo oo ciidan la iska horkeeno goormay dambi noqotay dowladda federaalka inay ciidan lacag siiso Soomaaliyeed imaaraadkoodu lacagta siiyo waa wax fiican laakiin haddii Soomaaliya ay lacagta siiso waa musiibo xamar balaa degan cadow baa degan dowladda xamar waa cadowga Puntland oo maxaad ugu shaqo tagtay Daniyow Farolow maxaad ugu soo shaqo tagtay maxaad uga shaqayn jirteen kulligiin maxaad u rabtaa Daniyow haddana inaad madax ka noqoto meeshu hadday tahay meel hoogto baaday meel cadow degan yahay hadday tahay maxaad uga tirsantihiin oo u leedin federaal baan nahay ma tirahdaan waa ka go'nay aan go'no reer Puntland xaaja rag waa go'nay anagu dalka kama tirsanin waa go'nay ma go'i karna ayno legally laakiin aan go'no on raano anagu dowladnimada ma ictiraafsanin ma rabno laakiin Farole inkastoo wax badan u qabtay reer Puntland dowladda Soomaaliya dib badan buu u geystay xiriirkan u jarnay ninkii alifay oo keenay buu ugu horeeyay ilaa hadeer wuxuu wadaa qabyaaladaas aan macnaha lahayn nin oday oo weyn oo soo shaqeeyay oo u baahan inuu nasto ahaa inuu ku dhex jiro siyaasadda isagay nasiib darro u tahay dib bayna u geysatay dhaawac weyn bay u geysatay hoos bay u dhigtay ma garanaysaa levelkiisii iyo positionkii uu Soomaali ku lahaa administrative aad u fiican buu ahaa dowladnimada Puntland shaqo fiican buu ka qabtay waxa lagu shaqeynayo dhan ninkii dhisay buu ahaa oo xafiisyada iyo dowladdu ay leedahay iyo madaxtooyooyinkii kulli baarlamaanka laakiin muxuu ka dhaxlay dhinacii kor buu u gudbi kari waayey boxkaas Puntland buu ka dhex bixi kari waayey oo ilaa heer national level buu gaari waayey weli intii buu wadaa gabar baa la hadashay gabar baa waxay dhaliishay Puntland iyo wiil kale oo isna Puntland Jubbaland uu yiri waa ka yimi baa waxay dhaliileen Puntland wuxuu yiri iscasila xilka laga qaado markay gabadhii dawacdeen la hadashan oo yiraahday la hadlin sanatarad weeye adoo kala oo kursiga meeshii sharci dejinta fadhida wixii dhaliil oo u muuqda haday reer Puntland tahay reer Puntland oo dadkii idinka tirsanaa oo hadal dhaliila idin muujiya ninkan Siciidani iyo qaabka u shaqeynayo hadii la idinka dhiga cadow oo liya cadowga gudaha ma taqaana waxa la idin karkarinayo waxa la idin bislaynaya heerkii la gaarsiiyay Xamati iyo Burhaan oo inta la isku dhuftay Suudaan lagu baabaashay 150 kun oo qof baa ku dhimatay wixii ay Yemen ka geysteen xadith wala xaraj ka sheekay dibna mare Liibiya iska daawarkeed adduunkii oo dhan nimankaas burburiyay 150 kun oo qof oo dhimatay ogaada Suudaan wadamada Afrika ugu aqoonta badan bay ahay jaamacadaha ku yaalay magaranaysa Khartoum jaamacadaha ugu caansan Afrika ahayn uguna sareeyay heerka aqoonta iyagii Masar baa tartansiya iyagana la yiraahdaa waa ka aqoon badan yihiin mawjeeda waa la baabiyay dad saa wax u bartay waa la baabiyay dadkan wada caamada oo illiterate ah maxaad moodaa hadii gacan la idin qaado xabad la idin ka reedi maayo ciidamada waxaan leeyahay dadkiina yaan la idin ku dirin xamar cadow maaha dadka joogaana cadow ma hawiye cadow maaha hawiye waa ninkan ay wada degantihiin oo walaalaha tihiin oo isdhasheen oo isdhaxashaan oo aad isla dhalateen oo isu dhaxdaan gaalkacyo ku weydin la degan wey ma dhib idinku hayaa maxaa la idin kaga dhigayaa
mataqaanaa labada tactic oo Siciid isticmaalo takhwiif iyo tajwiic ama waxa la yiraahdo fear tactic dadka in la bajiyo iyo hunger tactic in dadka la gaajaysiiyo si ay adoon isaga noqdaan oo dad aan waxba ahayno inta faqrigu dhaga beeliyo gaajana lagu dilo lana bajiyo la yiraahdo meel u dhaqaaqi kartid lama arko anaa igu khasbantahay hoos joog labada dhaqan oo isticmaalo way dictatorska oo dhan baan isticmaala keligii maaha waxaanay nolol maaha reer Puntland sida isu dhaamo ama taga oo wax dhacdaan waa go'nay wana federal maahin mana ka tirsanin xuduudihiina xirta oo ma garanaysa kala go'a dalka ka go'a ama sida isu dhaamo dawladnimada ay sheeganaysan aqbala dawladnimada integration bay rabtaa ciidamada ka shaqeeya Puntland Jubbaland iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle kulli waa federal maxaa diiday Puntland soo maaha maamul goboleedka shanaad oo ka tirsan federal member state soo maaha maxaa diiday in ciidan laga sameeyo ciidamada jooga kulligood beelaha leh lama rabo in la integrate gareeyo ciidan dawladeed laga dhigo ma ujeeda BSF waligeed Puntland lacag ma siin baroorta orgeega ka weyn saldhiga ku yaala gaalkacyo oo PSF waligeed xamar baa lacagta laga siin jiray waad ogtihiin waana taqaaniin ama Mareykan baa siin jiray bal dogle beela qoonda ahayeen oo halkaas ay mari jirtay ama si toos ah loo siin jiray marka waxaanu baroorta orgeega ka weyne waxa la idin karkarinayo la idin bislaynaya waa dagaal sokeeye ee inta ogaada qodobka labaad Jubbaland هذا كوربان دي شيء حسن الشيخ محمود إن الله ياري الله شيء Jubbaland يا Puntland ميزانية دودي كب كودي ميزانية إن الله سيو إلى واجب تاعي إسلام كاسنا العكتي دولار كلاجا أورورية لقصة شبه كونك دولة ميزانية ده كم موقته بالانس شيت إنه كم موقته ورقدا العكت هراجع هو كوكرن $1 بليون بعدين كاجي ترتال وير حسن الشيخ محمود وحي وقتها مركا تي Jubbaland إن هذا اللي سيدينه تم Puntland ولا سيدين دونا سان رجيني إن شاء الله وح ونكسن ضدكوا إني دقالة هذه هلان كل نبأ ونشابك كوشمان يعني ودن كملي إن أحمد هذا العقل سين إن دليل العقل سين على السين دن كملي بحيري وأوجه لو ضبع يجا كنا إليه وأجاري كوشبتان كوا كلامنا وعلمي لكن دولة النمدي كلا جونيد وكلا قبنيد إن لا يسقط خصب حسنه وأرنتان سمين تهذا أي عدان كتهاي يا سفر كي واجد وكنت جاي وسمح بك سوفين أي عدان كنت هاي تندى إنه وديار جروبي تندى ده ما إلا جام مارمان تهاي واحد من الدكتورس اللي يرادو وأشغيني يعني اسم تيرين أنا اللي جاي يلين أي إذين عدين سا